shir jiraaday maanta magaalada Burco ay ku qabteen ganacsatada ka soo jeeda dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya isla markaasna xoolaha ka keenta dalka Itoobiya gaar ahaan dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee keena seylada xoolaha ee magaalada Burco ayaa ka hadlay ganacsatada ka soo jeeda gobolka Togdheer oo sheegeen inuu ka dhacay lacag tiro badan ganacsatada ka ganacsata iibka xoolaha nool ee ka soo jeeda dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sidoo kale eedeyn u soo jeedisay wasiirka dawladda wasaaradda maaliyadda Soomaaliland iyo gudoomiyaha maxkamadda gobolka Togdheer ay ku eedeeyeen in soo taageen in la fuliyo saddex heshiis oo kala duwan oo ay wada galeen ganacsatada lahayd xoolaha nool iyo waliba mas'uuliyiinta macshirka xoolaha naaxinta alcaan ee magaalada Burco waxaan halkan idaacadahan aan isugu yeernay caawasho ama dib magaalada Burco la yiraahdo naga haysta annagoo asal ahaan ka soo jeedna dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya isugu jira gobollo badan sida Qorraxay Doollo iyo Shabeelle cawatinkaas oo ah xoolo aan bixinay ama la naga deynsaday ama la naga qaaday 9 bishii 7 2014 xoolahaas oo cadadkoodu dhan yahay 229 qodobkaas oo ah nimanka la dhaho ilma Maxamed Xaashi Yuusuf Xaashi iyo Maxamed Xaashi ee maxjarka ka samaystay galbeedka magaalada Burco ayaa rabadaantii la soo dhaafay xoolo 4900 neef oo aan qaatay lacagtooduna 229 dollar tahay xoolahaas oo kamid ah ari dhowr iyo 10 neef ah 2 neef oo Burco Hargeysa wajaale inta laga leeyahay dadkaas oo ka isugu jiray Soomaalida dhamaanteed kadib dadkii kale dhamaantii xoolahooda in la siiyo oo waliba dadka u badnaa reer waqooyiga dadka Burco degan u badnaa oo dadka deegaanka u badnaa in xoog ku qaata iyo nin ku qaata farsamo ku qaata dadkaas nin walba xoolihiisa laga hayn waayo la siiyay kadib lacagtaanadii ahayd 229 dollar oo lana qoray muddadeedii kadibna markay dhamaatay la siin waayo noloo diiday si cadna nologu diiday ayaanu waxaanu ka camanaynaa maanta dawladda Soomaaliland oo u dacwoonay oo u tagnay kadib markaan u tagnayna 3 bilood bay 2 bilood iyo 15 casho ayay noo qabatay 2 bilood iyo 15 casho markay dhamaatay dawladdii shanta guddiga nabadgelyada way soo xireen ninkii xoolaha naga qaateena dhacay isagoo halkaan loogu xiro xoolihiisa iyo hantidiisa dawladda ay tiwaan ka qaadayna ayaa waxa artaas xoog iyo ku sidaaya awood u sheegtay gudoomiyaha maxkamadda oo dhaho canshuur iyo wasiir dawladda maaliyadda Cadaani waxaan nahay dadkii xoolaha laga dhacay muddo 12 bilood iyo xoolaha naga maqan yihiin gobolka kala duwan waan ka nimid Wardheer Qabdaare Goday Dhagaxbuur Dhanaan dhulkaas oo idil baan ka wada nimid dadka hadda bidixdeeda fadhiya iyo dadka midigteeda fadhiyaba waa dadkii ila socday gabdhahaas kamida marka waxaan ka codsanaynaa waxaan u sheegaynaa xukuumadda Soomaaliland inaan isdhici karin xuduud aan leenahay diris aan nahay halkan markaad ka dhaqaaqday ilaa ceel baxay marsin intay isu jiraan waad aragteen waxaan doonaynaa inaan dadka dariska xoolo dhaqatada aan dib lagu dhax dhigin dawlad deegaanka annagana waxaan ogeysiinaynaa cabasho inaan xukuumadii sare gobolka maxkamadii macal wasiirkii Hargeysa uu soo galay oo xoolaha anaga aan aalankan aan waxba gacanta ku haynin in ay soo fargeliyaan oo safiirka u jooga Itoobiya ay la soo hadlaan xukuumadda annadana taasaan iyadana cabashada yaan u gudbinaynaa 75 bari ee gobolka shanta amniga oo ugu dambeysay markay dhamaatay ayaana loo soo qabtay oo shantii amniga ay soo xidheen ninkii wasiirka dawladda maaliyadda yaa Cadaani yaa farageliyay oo yiri ma qaban kartaan oo ma xidhi kartaan ninka gobolka jooga ee adduunka maxkamadda ugu sareeya inuu maslaxda waddanka iyo ummadda ayna midna danaynaynin ayaa sii daayay ninkii maalinkii ugu dambeysay aan u tagnaa oo daraata ahaydna waxaana la yiri wax allaale waxaad qabsan kartaan iyo waxaad dili kartaan iyo waxaad dhici kartaan waxaan leeyahay waxaan ahay qof dumara waxaan biilanayay ciyaal yar yar oo sagaala waxaan ku biilanayayna wax yar oo jeebla ku ahaa buu ahaa aniga layga qaaday oo aniga ma garanaysaa ariga waday haddaan wadayna waxaa ila joogay dhowr iyo 30 ruux oo sidaas oo kale jeebla baan ahayn marka 12 bilood bay hantidanadu maqan tahay intaana dilaaliinta baa maxay ahayday noo dhigayay mashkaxin iyo jooga iyo ma garanaysaa ay wax hantidiini baanu gacanta ku haynaa dawlad baa ma garanaysaa ay waxeena qaabilayso oo meel dawlad joogtay xoolaheena lagu qaatay sidoo baana la lahaa wixii wax garada ma garanaysaa Burco joogana wuu og yahay ama dawlad ha ahaado ama uqaal ha ahaado ama culimaha ha ahaato masaajid xataa waa lagu og yahay xoolaha naga marka ay sidaa tahay
maanaan taag waayin oo maanaan tabar waayin oo dawlad baanu nahay hantida Soomaaliland wayna ag martaa aniga gurigayga agtiisa 7,000 oo neef oo Soomaaliland leedahay baad yaa daaqaysa waxaan doonayay oo kaliya wanaag inaan wadada ku mara waxaygana ku qaato haddii ay maxay ahayd ay xoog taalana dee ma garanaysaa wixii hadda ka dambeeyo un bay taala haddii waxa nagina la siin waayo oo hadda sidaa marni ku tagno waxaan sheegaynaa inaan waxba ninna naga hayn karin oo nin walba geedkiisa u waaban yahay marka ninka maxkamadda jooga iyo maxay ahayd wasiirka madaxweynaha intaba waxaan leeyahay waxa la waxay ma garanaysaa ay aad idinku dhigteen u baa dhici doona geestiisana gudoomiyaha maxkamadda gobolka Togdheer Maxamed Jaamac Cashuur ayaa isaguna dhankiisa waxba kama jiraan ku tilmaamay eedeymahaas ay u soo jeediyeen ganacsatada ka soo jeeda dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxa jirta in maalin maalmaha ka mid ay sharci ka dambeysay inay odayaal kilka shanaad ka tirsan yimaadeen oo ay ugu yiraahdeen kilka shanaad Itoobiya ay ugu yiraahdeen nin baa na dhacay ninkiina dhacayna waxa noo xiray barasab ku xigeenka adiga barasab ku xigeenkuna ninka xarigiisa isku qabateen hanaga maada naga sii daayay ninki waxaan ugu jawaabay waxaan ogaaday markaa arrinna dhac martay aniga iyo gudoomiye ku xigeenka barasab ku xigeenka gobolka Togdheer oo ah in kiisaska madaniga dacwadda madaniga ee qofku wuxuu sheeganayo qof kale ay caado ka dhigteen in fara badan inay dadku geeyaan xafiiska barasabka in fara badan kiisas aanu hayno ayay barasabku ama barasab ku xigeenku wala siinba barasab ku xigeenku in fara badan dacwadaanu hayno faraha la galaa sidaas ay kaga magan yihiin mana oran karo mana dhici karto in qofku yiraahdo dacwad ma furan kartid meel sharci ma tahay inka hadda ay keenaan processki sharci ee shaqadu waa iga bariyeen ayaa u maraya ومحمد إبراهيم حسن محمد بريتش تلفزيون عالمي رويال